بسم الله الرحمن الرحيم. خيارتي دمانتي وانا وضع السلامي سلامك بعد إن شاء الله. control panel ka baynu qaybiyo kala duwan ableelada ku jira aynu ka soo hadalnay maanta insha Allah waxaan rabnaa inaynu taabano file explorer ka option kan baynu rabnaa file explorer option kan haddii aan furo ablet weeye sidan kooban u soo baxa control kiisa iyo shaqadiisuna waxay soo baxdaa marka la tago file explorer ka waa kan file explorer ka hadda marka sidan aan u soo furo quick access kan buu isu furay siyaabo badan oo kala duwan waxaana sababaya waxa weeye halkan file explorer option kan qaabka settingka uu yaalo waa kan wuxuu leeyahay horta general buu leeyahay viewna waa leeyahay wuxuu kaloo leeyahay search kan waxaanu uga soo hadalnay indexing options baynu hore uga soo hadalnay control panelka optionada kamid ah haddaad rabtid inaad u isticmaashid adjustmentkeeda waa halkan weeye generalka haddaan dib ugu laabto waxyaalihii hadda file explorerka marka aan furay wuxuu isu furay qaabkan inuu isu furo waxa sababaya hadda settingka hadda tagtid soo ma aragtid hadda open file explorer to home buu ahaa laakiin caadi ahaan wuxuu ii joogaa this pc buu ii joogaa hadda this pc apply baan ku dhuftay this pc markaan tagay ka bacdina apply baan ku dhuftay apply markaan ku dhuftay haddaan dib ugu laabto file explorerkii hadda wuxuu isku furay this pc buu isku furay oo halkan ka muuqata halkan sarena way ka muuqataa this pc haddaan galana failadii caadiga ahayd oo kuwii systemka ahayd kuwii windowga ahaa iyo kuwii personalka ahaaba way ka muuqdaan haddaan dib ugu laabto file explorerka optionkiisa talabaada xigta marka aan haddeer file explorerka halkan haddaan dib ugu laabto aan furo file marka aan furo fileku doonaba ha ahaadee marka aan furo Allahu musta'an ama tasifuun marka aan furo si commercialkaas u socdaa wuxuu socdaa tartiilka buu socdaa laakiin taa waxbaan ka bedeli karaayo haddii aan idhaaho file kasta waxaad furtaa option kan open each folder in his own window haddaan idhaaho waa apply ka bacdina aan tago markaan file explorerkii oo halkan aan dib ugu laabto haddeer kaba soo qaado kale isla sidii soo ma aragtid wuxuu furay daaqad cusub buu furay user stack daaqad cusub oo kale buu furay marka wuxuu ku siiyey independent inuu mar walba sidii browserkii oo kale mar walba daaqad cusub uu ku furo marka hadda waxaan dib ugu celinayaa inuu halkii mid uu furo baan dib ugu celinayaa taa waxaa kale oo quseeya Allahu musta'an ama tasifuun apply that taa waxaa kale oo quseeya optionadana waa la mid weeye taa waxaa quseeya haddaynu tagno viewga optionna badan oo file explorerka adjustment aad ku samayn kartid oo dhinaca doontid u hogaamin kartid isaga laftiisa buu ku siinaya haddana waxyaaluhu haddaan tago file explorer haddaan tago aan dib ugu laabto this c drive ka haddaan tago Allahu musta'an ama tasifuun waxaa ka kooban haddaad aragtid waa ilaa 8 file folder baa ku jira 8 folder haddii ay ku jiraan haddaynu hadda halka tagno option kan haddaynu tagno oo nahno show hidden files haddaynu tagno apply aynu nahno okay file explorer ka aynu dib ugu laabano c drive ka dib inoogu celi wuxuu soo saaray dhowr kale oo aynan markii hore meesha ku hayn baa soo baxay recover kana soo baxay kan xbox game kana soo baxay waxyaalaha sababayna faylada hirinka ana adjustmentigooda wuxuu ka yimi file explorer option kan uu ka yimi marka waa qaabaha aad u isticmaali kartid weeye optionna badan bay hadda kan display the full path in title bar oo ah okay title bar oo ah inuu u bixiyo c drive ka tag user qaabka path ka full path inuu sida u taxo uu ka dhigo Allahu musta'an ama tasifuun
waxyaalo kale oo aynu ka ishaari karno waxaa ka mid ah walaalka wuxuu singalka kadib ugu laabo okay dheh waa waxaad aad runtii si aad doontid aad u adjust garayn kartid option halkan uu siiyo haddii lacala intaad waxyaalo badan ay isku daydid uu khalkhal uu computer kuu keeno ama aad fahmi weydo always reset baad ku dhufan kartaa dib baad u bedeli kartaa marka file explore options muhiimadiisu iyo inta aynu ka taabanay insha Allah baynu rabnaa inaynu ku khulaasayno oo short summary oo kale aynu ka dhigno insha Allah maanta waan wada salaamaya insha Allah wixii su'aal qabana insha Allah under the video waa post garan kartaa waa si waan baan salaamaya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh